mashruuca la dagaalanka indhala-aanta oo iska kaashanayaan dhaqaatiirta Soomaaliyeed isla markaana ah mid si lacag la'aan ah dadka indhaha loogu fiiqayo ayaa degmada Buurtile lagu daafuray waxaana munaasabada daafurka mashruuca ka qayb galay maamulka degmada Buurtile nabadoono haween dhaqaatiir iyo bulshada qaybaheeda mashruucan oo bilowday maanta ayaa waxa uu ka soconayaa xarunta daweynta indhaha ee Buurtile wakiilka hay'adda Horn African Safe Vision Dr. Axmed Cabdirasaaq Dhaashane ayaa ugu horeyn faahfaahiyay mashruuca waxaa lagu macdaray barnaamijka mashruuca la dagaalanka indhala-aanta hoosna waxaa ku qoran indhafiiqis lacag la'aan ah mashruucan saa u jeedaanba dhakhaatiirtu markay isku timid waxay diiradda saarnay see Soomaaliya looga faa'iideyn karaa mashruuca iyaga oo markaas aan haysan garab taageera iyo barnaamijka ka qabanaya baahidooda waxay awoodda saareen dhakhaatiirtu inay juhdi ku bixiyaan oo la yimaadaan inay wax u qaybiyaan 3,000 oo qof oo Soomaaliya joogta inay dhakhaatiirtu ay qalliin u sameeyaan 2016 oo bisha hadda waxay ka dhiman yihiin dabayaaqadiisa ilaa 2017 sanadka ah geeyiga Soomaaliyeed ee Soomaalidu degto in la qalo 3,000 oo qof haatan oo maanta bishu tahay 23 bisha 2016 baa mashruucii laga qaatay 6 bilood u dambeeyay daafurkiisa nasiib ugu yeelan waxa weeye mashruucan uu bilaabanayaa laga bilaabo maanta oo bishu tahay 23 bisha 2016 up to July 2016 oo ah xilliga u dambeeyo ee qalliinku fulayo waxa uu laba Facebook noqon doona xogayaha dowladda hoose ee degmada Buurtile Cabdinuur Timoweyne iyo Maxamed Maxamuud Axmed Buurdibi gudoomiyaha degmada Buurtile ayaa mahadcelin kadib sheegay in loo baahan yahay inay mashruucan xoogiisa ka faa'iideystaan dadka danyarta ah aan waxba haysan isla markaana indhaha dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo ka soo shaqeysay mashruucan 3,000 oo Soomaalida ay indhaha ugu fiiqayaan tabarucaadka indha fiiqidii iyo daaweyntii oo wada socota aad baan ugu mahadcelinayaa doctorku wuxuu noo sheegay in qoondadii koowaad oo la qaybiyay 1,000 bay noqotay Puntland waxay ka heshay 50 qof 50kii qof wuxuu suurtageliyay inay timaado magaalada Buurtile iskama imaan waa juhdi uu galiyay weeye aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa fariimo diro dadka noolayaasha oo wiilashoodu xogayuu sheegay inta liidata cid kastoo indhala way u baahan tahay inay aragti hesho laakiin kuwa waxaa jira dadkooda dhaqaale siiya ama iyaguba dhaqaale leh intii la helayo qof aan waxba haysan inaynu ayagana si gaara u tixgelino oo weliba doctorka anigu aan ogsoonahay inuusan ka marnayn dadaalka iyo daacadnimada haddana waan xasuusinaynaa in dadkaas aada u liita maadaama aynu isnaqaano in tixgelin gaar la siiyo dadka liita kaliya indhaha ee cudurro badan oo baahidooda ay jirto sida ay ugu dhiiradeen maxay ahayto isuguna xisaareen aad baan ugu soo dhaweynaynaa waan uga mahadcelinaynaa bahda dhaqaatiirta oo uu gudoominayo Axmed Cabdirasaaq Dhaashane waxaan leenahay Axmed aad baad u mahadsan tahay aqliga aad ugu raadisay dadkaaga iyo dalkaaga wax Allah ku siyaadso iyo cilmigaba intaas oo ku ducadaan kugu darayno waana ku mahadsantahay waana soo dhaweynaynaa guuleysati jaamac warbaahinta dowladda Puntland magaalada Buurtile